waxaan doonayaa in aanu markana qaybta isla hadalhaynta waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka Soomaaliya ayaan eegaynaa haddii rabbi raalli ka noqdo. waxaan ku horeynaynaa weerarkii lagu qaaday hotel markaasi Villa Rosa saacadaynu ka soo gudubnay. haddaba waxaa weli la sheegayaa rasaas xoogan oo laga maqlay hotelka markaasi gudihiisa oo ku yaala xeyndaabka madaxtooyada Soomaaliya, halkaasi oo xalay weerar qaraxiyo ku bilowday ay ku qaadeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada Soomaaliya waxaa saaka la dhigay ciidamo aad u fara badan oo isugu jira booliis iyo military, kuwaasi oo dadka iyo deegaanka u diidaya ama gaadiidka u diidayaan iraahde inay dhinaca madaxtooyada soo aadaan. mas-uuliyiin, dad shacab iyo siyaasiyiin ayaa laga soo badbaadiyey hotelka weerarka lagu qaaday, kaasi oo la sheegay in rag hubeysan ay weli gudihiisa ku jiraan. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaana weli wax faahfaahin ka bixin weerarkan marka laga reebo qoraal kooban oo xalay booliiska ka soo baxay, kaasi oo lagu sheegay inuu socdo howlgal lagu soo gabagabeynayo ragga weerarkaasi geystay. haddaba bal waan kusoo noqon doonaa isla arrinkan, hase yeeshee saaka waxaa leeyahay weli xabada ayaa laga maqlayay, dad ayaa gudaha ku jira isla hotelka gudihiisa, waxaana laga cabsi qabaa intooda badan in waxyaala ay soo gaadho. dad badanna waxay sheegayaan maadaama hotelkan uu aada ugu dhow yahay madaxtooyada dalka in haddana ay jirto su-aalo la iska weydiinayo bal sababta hotelkaasi loogu weeraray. shakhsiyaadka dhaawaca kusoo gaadhay waxaa ka mid ah wasiiro iyo sidoo kale xubno kala duwan. ilaa imika war rasmi ah lagama hayo tirada dadka dhaawacmay, hase yeeshee xubno sarsare oo dowladda ka tirsanaya la sheegay in qaarkood laga soo daadguriyay halkaasi, isla markaana laga soo saaray khatarta iyagoo dhaawacyo fudud soo gaaray. allah u naxariistee muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Sayid Xasan, isla markaana u dhashay ama haysta dhalashada Britain, isla markaana dhowaan dalka Soomaaliya muddo 2 isbuuca dib ugu soo laabtay, ayaa ka mid ah dadka ku nafwaayay weerarkaasi lagu qaaday Villa Rosa hotel gudaha magaalada Muqdisho. waanu kusoo noqon doonaa. dhinaca kale, guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ku dhawaaqeen dib loo dhigay kulankii wadajirka ee baarlamaanka labadiisa aqal, kaasoo la filayay inuu saaka ka dhaco xarunta Villa Hargeysa ee ku taala gudaha madaxtooyada Soomaaliya. kulanka baarlamaanka labadiisa aqalka ee baaqday ayaa ajendiisu ahaa akhrinta koowaad miisaaniyadda qaranka sanadka 2023, balse kulankan ayaa dib loo dhigay. inkastoo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya uusan shaacinin sababaha baaqashada iyo haddana la rumaysan yahay inay la xiriirto weerarka lagu qaaday hotelka Rais ee magaalada Muqdisho, halkaasi weli ay rag hubeysani ku dagaalamayaan. afhayeenka booliiska Soomaaliyeed gaashaanle Sadiiq Doodishe ayaa sheegay in hotelka laga soo badbaadiyay dad shacab iyo mas-uuliyiin. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Badoobe iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaana weli labaduba ka hadleen xilliga rasmiga ee kulankan uu qabsoomi doono. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bartamihii bishan ansixiyay $967.7 oo ah miisaaniyadda markaasi dowladda ee sanadka 2023, iyagoo markaasi u gudbiyey baarlamaanka si ay uga doodaan kadibna ay u meelmariyaan. waxaan lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dhammaan xildhibaanada golaha shacabka waxaa lagu wargelinayaa in kulankii wadajirka ah ee labada gole dib loo dhigay. guddoonka labada gole ayaa dib kasoo sheegi doonaa fadhiga xiga ama saacadda ama taariikhda xiga ee fadhigaasi la yeelan doono, ayaa lagu yidhi qoraalkaasi. haddaba isla haddii aynu ku noqonno bal weerarkan wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo ka badbaaday qaraxyadii ka dhacay hotel Villa Rosa oo ku yaalay ama ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. war soo baxay waxay sheegeen wasiirka amniga gudaha federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodisho uu ku jiray shakhsiyaad kale oo ay ka mid yihiin kuwa uga yaraan 2 mas-uul oo kale oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi. wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka ayaa sheegay in qaraxan ay ka badbaadeen wasiiro ay markaasi uu ka mid yahay hotelka degnaa. waxaana uu yidhi waxaa qarax lagu weeraray hotel Villa Rais oo aanu degannahay. markii nala weerarayna aan dhex fadhinay annagoo salaada cishe jameecadda la soo tukanay, waan badin qabnaa alxamdulilah. maalin aan dhaafi doono ayaa jirta, ayuu yidhi aw xirsi oo isagu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka, oo isagu bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraalka weerarkaasi. badan wax iska weydiinayaan sababta keentay in xubnaha lagu tuusan yahay in weerarka ay ku qaadeen hotelka xarakada Shabaab ka tirsan, cidda markaas u suuragelisay in gudaha ay u gasho hotelkan
iyo amniga goobtaasi oo ahayd mid si aada loo ilaalinaya isla markaana ay jireen jegbointiyo dadka lagu baaro qaarkoodna laga qaado ID kaarkooda ka hor inta aynan gudaha u gelin. dadkuna waxa ay isweydiinayaan iyadoo amniga uu sidaas yahay oo amnigeeda goobta ay adag tahay haddana maxay tahay weerarkan goobtaasi lagu qaaday iyo sababta ay ku dhacday oo dadku ay dhinaca hadal haynta intooda badan ay wax isaga weydiinayaan dhinaca Twitterka marka la eego saacadihiinu kasoo gudubnay. waxaa mararka qaar isla maanta rasaas teltel laga maqlayo gudaha hoteelka Raysa ee xeyndaabka madaxtooyada Soomaaliya ku yaala halkaasi oo xalay fiidkii rag hubeysan ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarax. hoteelkan oo ay degnaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa badankood laga soo badbaadiyay hase yeeshee waxaa la sheegay inay gudaha hoteelka ku jiraan rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo rasaas ku soo ridaya dadka. hareeraha hoteelka Rais ee la weeraray ayaa waxaa ku sugnaa saaka ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaasi oo doonaya inay soo afjaraan weerarka lagu qaaday hoteelka. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ka aamusan inay ka hadlaan weerarkan waxaana aad u adkeed shalay in la helo xogta rasmiga sida ay wax uga socdaan hoteelka la weeraray iyo goobaha ku dhow maadaama aagaasi ammaankooda aad loo ilaaliyo. dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa madaxtooyada ayaa waxaa la dhigay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo markaasi u diidaya in dhinacyada ama dhinaca madaxtooyada dadku ay soo aadaan iyo sidoo kale gaadiidka. iminka xogtii ugu dambeysay ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan kooxdii weerarka ku qaaday hoteelka Villa Rosa iyadoo dhammaan la toogtay qawaariijta weerarka geystay ama soo qaaday aan iraahday. waxaa si buuxda hadda amniga hoteelka gacanta ugu haya ciidamada amniga sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha amniga ee howlgalka qaybta ka. dhammaan dadkii ku sugnaa hoteelka la weeraray ee goobaha ka agdhow ayay ciidamadu soo badbaadiyeen iyagoo nabad qaba sida laamaha ammaanka ay caddeeyeen. waxaa jira khasaare u badan askarta hoteelka ilaalinaysay kuwaasi oo haleelay qaraxii ugu horreeyey ee hoteelkaasi lagu weeraray. ilaa hadda ma caddo xogta rasmiga ee khasaaraha weerarkan uu geystay hase yeeshee weli aad ba loo hadal hayaa. haddaba weerarkan iyo sidoo kale waxyaabihiisi ugu dambeeyey waan idiin soo gudbin doonaa wixii macluumaad kusoo kordho haddii abaweyne raalli ka noqdo. laagareeya muuqaalkan sidoo kale la wadaaga asxaabtiina ku sheer gareeya bogaga kala duwan. waxaan idin rajaynaynaa muuqaal ka xiisa badan inaanu idiin soo gudbin doono haddii abaweyne raalli ka noqdo. waad mahadsantihiin. waxaa mararka qaar isla maanta rasaas teltel laga maqlayo gudaha hoteelka Raysa ee xeyndaabka madaxtooyada Soomaaliya ku yaala halkaasi oo xalay fiidkii rag hubeysan ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarax. hoteelkan oo ay degnaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa badankood laga soo badbaadiyay hase yeeshee waxaa la sheegay inay gudaha hoteelka ku jiraan rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo rasaas ku soo ridaya dadka. hareeraha hoteelka Rais ee la weeraray ayaa waxaa ku sugnaa saaka ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaasi oo doonaya inay soo afjaraan weerarka lagu qaaday hoteelka. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ka aamusan inay ka hadlaan weerarkan waxaana aad u adkeed shalay in la helo xogta rasmiga